kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeena waqti toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa arrimo aad u murugo leh bidaad oo ku saabsan dhalinyarada iyagu martay jidka halista badan ee hagardaamada badan ee dhibka badan ee waalidiin badan aad u xanuujiyay dhallaankoodii iyo ubadkoodii aysan ogeyn meel ay kaga waramaan jidkaasi waa jidka qodaxda leh ee loo maro tahriibta haatan waxaan ku bilaabi doonaa ama wadada loo yaqaano wadadii hoyga geerida ama dhimashada ila eega toddobaadkan waa socdaalkii runta sumaysan iyo sibir dhaqaaqii dhalinyarada saluugtay isrisiqaan saxaabada ku jirin saami qaybsi weeye sahankii noloshu qofka siduu u sameeyey waa saban la yaab badan saacado soo jeed badan surimo sir ah iyo safar aan soo noqod lahayn waa fariimo kuu sida tusaale hoga tusmareeb qalbi jab iyo murugo لما وصل يعني 19 أيام وشربنا بلبس باقي هذا وأنا كل واحد غرق في البحر 29 نفر ماتوا 6 نساء والباقي كلهم ذكور كل ما مات واحد يجسسه في البحر 19 يوم كنا نجري في البحر والريح تشوفه تارة هكذا وتارة هكذا rajada maldoofka ahi iyo riyada mala awaalku waxay kugu hogaamisaa mahadha xasuusteedu xanuun ay leedahay marinada qaar baa kadeed badan waqtiga iyo taariikhduna dharaaraha iyo moogo marbay mawjadaha ay sidaan ay ku silciyaan xeeladaha taariibta sirta ku duugani waxay muddooyinkan yeelatay wajiyo badan oo kolba ay la soo baxday dariiqo iyo marin hor leh oo lagu maanguurinayo dhalinyarada walaacu kaga dhacay mustaqbalka aayahooda socodkan aan nasashada lahayni wuxuu midba ka daran yahay kiisa kale waxaana ka soo wajahaa muddada ay ku sii jiraan socodkooda tacadiyo qafaalasho jirdil iyo aftuub taasoo qaarkood ay nasiib darro aysan ku guulaysan inay gaadhaan halka ay beegsanayaan waxay ka ordayaan baahi cabsi waxayna beegsanayaan nolol barwaaqo ah oo ay filayeen inay ka heli doonaan halka ay diiradda u saarnayd oo ahayd dalalka Yurub waxay siriyadaasi ku burburtay dhulkan saxaraha ah ee badaha waaweyn ee cadcadi ay ku xeeran yihiin wadada Yurub loo maraa albaabkeedu burinkeedu waa mid aad u khatar badan run ahaantiina waa mid waalidiin badan ku beeray beer olol iyo naxdin waa mid walwalka iyo walaaca ka haysta boqolaal iyo kumanaan waalidiin ah habeen iyo maalin aysan ka ladin waxa soo wajahaya dhallaankooda ku ilaaday ee ku dhammaaday dhul saxara ah iyo badahaasi kuwaasoo magacyo iyo suuradahoodu ay qalbiyadooda ka sii muuqdaan markii ugu dambaysay iyo halka ay sii marayeen muuqaalka barnaamijkan ayaynu daawadayaasha qiimaha badanow kaga hadli doonaa xaaladahaas inagoo ka ambaqaadi doona safarkan halaaga badani halka uu ka bilaamo waxayna ku bilaabi doonaa saxare muxuu yahay saxaruhu maxaa lagala kulmaa muxuuse yahay midabka ku duugan saxaruhu waa dhul oomana ah oo aan lahayn baadiyo biyo xitaa goob aad gabood ka dhigato waa dhul dherarka iyo baaxadda ciidda qalalan ee buuraha laaleegi ay ka badan tahay 100,000 oo kiiloomitir waxaana muddada safarka saxaraha lagu jiraa haddiiba alle kaa badbaadiyo halista ku duugani ay dhan tahay muddo ku dhow 20 habeen iyo 20 maalmood waa haddii aad nasiib leedahay ma laha waddo sax ah oo cayiman waayo dabaylaha xoogga badan ee sida ciiddaasi waxay kolba u gurguurtaa jiho waxa ugu dan waxay tahay baabuurta waa lagu dilaa waxa lagu dilayaa baabuurka bacaad buu dhex galayaa waxba ka qaldamaya ninka liibiyanka wuxuu ku leeyahay gaariga waa in la riixaa arxan ma leh gaariga markaad riixdo aleen waa taqaanaa gaari markuu bacaad ka riixayso waa inuu cabaar socdaa dadkan waa wadamaya wuxuu ka ordayaa halkan iyo waxaan qiyaasi karaa 3 mayl amal oo kale inta qiyaasi kara bacaadkana wuxuu gaarayaa lugtaada ilaa jilibka
انت ترب leedahay adeeg marka qiyaas adoo baahan rafaasan ooman inaad lugayso 3 miles ma lugayn kartid bartaas uu istaagaya uu taagaya ilaa qof ugu dambeeyo ka yimaado waa ka naxariista haduu ku waayo laakiin saacad buu qabanaya haduu qofku waayo iska dhaqaajinaya adeeg ku taala nin walba orod inta garfa saa u dhacays meesha tagaysa markaas uu isaga qulbu ku dhacaya xog gaari kugu saaray adoo daalan waxaana dhacda in ciidaasi daqiiqado gudahood ay kugu qarin karto ama aad ku qarsoomi karto meelaha qaar sida biyaha waxa kaloo ay caan ku tahay halkaasi abeesooyinka dibqolooca iyo xayawaanaadka kale ama baalaha kale ee halista ah oo waabayda sunta ay sidaan daqiiqado hadday ku qaniinaan naftuba ay dhici karto inay halkaasi kaaga rawaxdo halista silaca iyo haraadka diifta badan ee halkaasi yaalla waa mid aan lagu sifayn karin sawir iyo warbixin balse waxa dhab ah halkan inay tahay tiir ka mid ah tiirarka dhimashada ee marinka u ah socodka xanuunka badan ee taariibka ku qarsoon bartaas laga soo qaadaya saxari baa la soo aadaya saxarahaasi mid bay dhaantaa in la sameeyo kasi wanaagsan tahay sida oo kale gabdhaha soo baxaya gabdhaha hooyooyinka caruurta odayaasha inta meesha kama bixi karaan haday dhacdo waliba caruurta iyo hablaha waxa dhacday ninka gaariga nagu wada Suudaaniga ah wuxuu dhaafana cabdina male heer wuxuu gaari gabdhihii Soomaaliyeed oo yuusgareeyo isticmaala waxba kama qaban karna saxara la maraya waxba kama qaban karna heer wuxuu gaari gabdhahaasi oo iska haysta gabdhihii bay xoogayaan horta nadii wuxuu kama qaban karna oon baa ka dhacay meesha gaari baa jabayo meelad aadama leh nibanba inta uu dhaamo marka biyihii way dhamaanayaan inta arinta dhacdo waxay tahay marka qofka inuu yiraahdo war hebelow oon baa yahay kaadi oo kaadi la kala gato lacag $100 bay gaartay meesha qaali ay ka marayso kaadida waa arin aad u leeyahay oo gadanaya ilaa heer qofku marka uu kaadiyo waxa uu kaadiyo oo waayay halkan waa saxaraha meesha ugu xun goobtani waa meel ka mid ah halka ay kooxda burcadad qaleedku ku xanibaan dhalinyarada isla markaana afduubahaan ay ugu xidhaan si lacag loogu qaado iyagoo ay ku jirdiraan isla markaana ay ku cadibaan kuna qasbaan haddii uu lacagta bixin waayo in ay qudha ka jari doonaan waxay sidoo kale la soo hadalsiiyaan eheladiisa kuwaasoo ay codkiisa maqashiiyaan xilliga ay jirdilayaan ilaa waa beer waalidkii dhankooda kama habsaamaan waxaanay markiiba la degdegaan si ay ilmahooda cilada ku xidhan u badbaadin lahaayeen aad iyo aad baan uga xumahay aad baxar uga wareegsanahay inta dambanad walaalada islaamka qaasatan tabantaamada iyo lacagta la joojiyo guriga la iiminaya gaariga la iiminaya xaqeen ku soconnaa waa ciideeni waa dalkeeni inaan ka qaadnayna nasiibkeena ayaa wanaagsan ma fiicna waxa isku wada raacayaan dadku dalka gaaja eriyaysa qalkaaga haddaad ku gaajooto kaareerkaana ku dhargimaysid waddankana inagu ma lihin waa waddan gaalo oo wax loo cararay wax loo ordo maaha berri waxa laga yaabaa inaad in laga soo cararo iyadoo carruurta la soo qaadan kari waayay yurubta lagu cararayo waxa laga yaabaa berri iyadoo carruurta la soo qaadan kari waayay laga imaado marka dee waxa la yidhin cid waay bidciirsumood ninku mar hadduu dhalinyaro yahay ama iskuulla ka baxo ama mutacliin ka baxo ama wax barto meel uu qabtana waayo dee badda meelba wuu isku tuuraya marka anigu waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland dadka waxa uu qabato in dheer ku eegto hambadooda dambe waxa kaloo aanu codsanayna dadkayga ay ka maqan yihiin dadku waa inay caalamka la hadlaan oo maraakiibta milishii bal dadka wali dadkii uu maqan yahay bal wax quusa ay naga siiyaan oo hawl galaan inta iyagu doorashooyinkooda iyo waxooda isugu jeedaan waa inay dadka ka hawl galaan ilaa badaha Talyaaniga ilaa Maalda waxaanu codsanaynaa inay dadka murqura bal ka hawl galaan gey laga hayaamay oo ay tacadiyo iyo jirdiil ku dheer yihiin ayay dhalinyaradani si bilaaxad ah ugu habqantay geedigan madow ee rafaadka darani ku duugan yahay waa ayaan daro runtii murugo oo haysta guud ahaan geyga Soomaali aantina soo aragnay oo kala meydka meesha yaala hadaad fiirisa wax Soomaali kaga badan male baasaboorradoodii tintoodii lafahoodii dharkoodii aad u babacsan meydka yaala ku baaba'ay baabuurka dad marjaba ku dhamaatay waxa ugu xun gabdhaha dumarka la yuusgareynaya oo ilaa iyo ka imaadaan caasimada Trablis ma la badbaadiyay xabsi dad baa sameeyay way soo qaadaan guri bay keenaan waa dhalinyaro waa Liibiyan oo dad wax taariibiye habeen walba gabdhaha wala isticmaalaan
xoog ma hadli karto waa la dilaya hadday hadasho wiilka ma daba hadli kara waxaa laga yaabaa naagta in lagu horkaxaysto gabadha lagu horkaxaysto gabadh ala gabadh ay rabaan way soo galayaan fiir way la degayaan marka saxaraha soo marayso ma ayna daawyaraan iskaga soo mari maysid oo gaari ilahay ka dhasana uu jira laakiin hawlyaraan ku dumarka waa lagu kufsadaa waxa jirtay gabadha laba dumar kala hadhaan inay labada ay kala hadhaan labada gaari dambe soo socda inay tay laba cusub kala hadhaan inay labada dumar kufsadaan laakiin gabadha doonaysa inay halkaas soo marto aw diyaar garowdatay oo la kufsado aw soo diyaar garowdatay oo qalba niman daafuru la yiraahdo ay arag ama way maqashay kulay oo deeqo waaweyn inay tambaytay kala diraan kumanaan dhalinyaro ayaana xabsiyada dalalka waqooyiga Afrika koonfurtiisa iyo waliba wadan ugu xidhxidhan kuwaasoo hirdankii ay nolosha la galayeen ay maantaba ku maqan yihiin si loo qariyo wadada tahriibta sharciga baalmaray waxaa dantu ku kalifaysaa in meesha uu ku dhuuman karaba la geliyo gaadiidkan sidaa u raran ee aadka u culus ee sida agab kasta ma filaysaa daawade dabaqada ugu hooseysa in lagu xareeyo dhalintani oo dushana laga saarayo waxaasoo alaaba iyadoo socodka la soconayaana yahay kaa aan soo sheegnay muddada 3 toddobaad qaar baan iyagu dib uga soo noqon halkaas oo naqasku ku xidhmaa qaar baa waxyeelo maskaxda iyo jidhka iyo naftiisaba haleesha halkaasi ay ka asiibtaa ku darso warbixinta waxaynu ku eegi doonaa kumanaan dhalinyaro oo iyagu buux dhaafiyay jeelasha wadankaasi Liibiya warbixinteenan ayaynu barku ogaan doonaa habka ay u nool yihiin iyo sida indhala'aanta ah ee ay dhalintani ugu dayacan tahay isla markaana ay subaxda ka dambayso ugu sii ordayso ay ugu jirto geedigani halka uu ku soo afjaray noo ka ambaqaadi doona kuwa halista iyo hooga badan kala kulmay badweynta baddan madow ee aad aragtaan in badan oo dhalin ah ayaa baddan iyo saxarahan ruuxdoodii iyo naftoodii lagu waayay in badani waxay ku xidhan tahay derbiyo iyo goobaan la aqoon halka qaarna la laayahay ثلاثة مات لوح في البحر موت 3 انفار قال لك ما حول ولا قوة الا بالله waa maalin catow iyo calaacal meel la ku buuxin waa maalin ilmada waalidkay qubanaysa doojin karin jirka damqanaya daraar weeye dhiigtada iyo dhilada taala afka qalaad ku dhibaayo والله مسلمين واحد كلام بعدين في هنا صحراء مسلم لكن لا مسلم والله مشكلة كثير الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر tanna waa dhab iyo dharbaaxo waji gabax leh oo ku dul harsatay dhalinta naftooda ku gadoomisay geediga rafaadka riyada Yurub gabal weeye dhacay oo dumay gudcur weeye dam ah sukeeye iyo gacan joogin hada saaxiibkaagii rumaad kuma saacidi karaayo gacalkaana kaadhe اليوم صباح وين الصحراء الصحراء كم لك من في الصحراء 14 أو 15 يوم من السودان إلى الصحراء ليبيا والله ما دفعنا شيء لأنه ما عندنا حاجة عذبونا قولوا جيبوا فلوس لكن ما عندنا فلوس عندنا حاجة تانية كنا تعبانين مشي في رجلنا ممكن 100 كيلو متر رمونا في 100 كيلو متر مشينا كثير اسمك؟ سعيد محمد حسين شنو الجنسية؟ صومالي كم لكم في الصحراء؟ النفر ها؟ كم لكم يعني بعد دخلت ليبيا كم لكم يوم؟ والله 16 يوم 16 يوم هاي وهل اللي جابكم هنا يعني واخذ منكم فلوس؟ والله اخذنا فلوس هاي كم واخذ على النفر؟ والله على نفر 800 دولار اللي وصلكم من حدود السودان للكفرة ليبيا من حدود السودان الى هنا 600 دولار لا جنسيته شنو؟ صومالي سواق لسوق التيب السواق من حدود الى هنا من حديد الى هنا 2 سواق
2 سواق. هاي. شنو جنسيته؟ واحد تشادي وواحد سوداني. هذول اللي جابوك هنا؟ هاي من حدود السودان إلى هنا. مهاجرين أو شرعيين طبعا جنسية صومالية بالكامل. أظن أيضا من الهجرة غير شرعية قبض عليهم اليوم من الصومال، الأخوة الصوماليين. وصلونا فكونا في صحراء، ما عرفتونا في صحراء، ما عارفين أي حاجة. ماشيين من الساعة 11 لحد الساعة 9:30، ساعتين. نحن باقي لنا يمكن نفارق الحياة. هنا 7 سودانيين و21 صومالي. صلوا يا اخي. ان شاء الله خير والله اكبر. خلاص هذا كله ميه. باسبور وين؟ كان في باسبور تو احنا نجيبوه باهي خلاص. اطلع فوت الباسبور، هي فوت الباسبور فوت. صومالي ذا. صورت. وين انتم الصومالة؟ اقلب صومال. منين انت منين؟ صومال. صومال. ايوه. منين جاي؟ تونس. ايوه. انت طالع من تونس. انت طالع من تونس. انت طلعت من تونس؟ تلعب. لا افهم والله. قديش ليك يوم في البحر؟ قديش ليك يوم؟ ساعة كم طالع من تونس؟ 5 يوم في البحر. 5 يوم. 5 يوم في البحر. رمضان baa soo galay waxaa dhacday doontii markay kici waysay si walba u kicinay way baxday badday dhex martay talaba cilaatay nin walba waa fikiray nin walba wax buu sameeyay fikirkii wuxuu ku soo dhamaaday nin walba caadagta shidaalka saaran nin walba ha iska qabsado badda ha isku tuuro haddii uu meel geeyo iyo haddii badda uu noqoto shidaalkii waxaan daadinay haaf ka mid ah markaan daadinay ka bacdi baan waxaan ogaanay doontii matoorkeeda wax ka dhacay oo ay la kici waysay inuu meesha ku jiro shidaalkii waa daadinay haaf bahashi baan helnay waan gelinay doonta way noo kacday alxamdulilah laakiin waxaan maraynaa markaas iid ah 5 days timir baan haysanaa baddi dhex taallay timir baan haysanaa qofka maalinta wuxuu cunayaa xabad timira iyo furka caago biyaha ah caagagta 20 liitarada furka lagu daboolo oo qof walba xaq u leeyahay aniga gacantayda ku qaybinaya dadka ana siinay 6 kun ku saareen way dhamaanayaan laakiin alxamdulilah doonta baa kacday saas ay tahay Soomaali waa iska dhib badan tahay waxa la isku qabsaday aan noqon iyo u socon waa mid ugu daran 6 caag oo shidaal baan haysataa ma la noqdaa oo ma Liibiyan ku noqonnaa mis hore baa loo socdaa waa isku dagaalay heer waxay gaar doonta noo kala gooy hadii la kala gooyna lagu baaba'ay Sooma ilaa markii dib adiga si loo doodayay nin oo yiri doonta baan gidinay waa hada gidisiya haray war u kaadi heer ay gaartaan u tashan asixta aan tuurno intuu adana baabi'in lahay alxamdulilah si loo dooday habeen imaan loo dooday waxa lagu heshiiyay in la noqdo waxay nagu qaatay 7 days شافر انتم كلكم انتم لما انتم خرج وين انت 65 وتو قديش كلكم انتم اللي مات منكم قديش مات منكم ايش واحد مات 3 مات لوح في البحر 3 نفر موت 3 انفار قال لك مات. لا حول ولا قوة لا اله الا الله.